السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada waxaa qaadanayna sida table-ka loo sameeyo HTML-ka markii la jeedo insha Allah waxyaalaha kalena practically waxaan ku arkaynaa marka website-ka sameynayno marka table-kaas la fiirino marka qaabka yani table-ka uu shaqeynayo tagiskiisa kala duwan aan baranayna waxaan ku install gareynaynaa marka qaybta CSS-ka aan gaarno okay marka file-ka table sameyso kadib waxaan leenahay table marka table-ka markii la sameynayo waxaa lagu bilaabaa sawjeedid dabcan intaa ka akhrisan kartaa meesha hadda aan sameynayna marka table ayaa lagu bilaabayaa kadib saddex qaybood waa qayb head ah iyo qayb body ah oo wax la soo muujin lahaa iyo qayb footer ah marka intaas waa loo sameyn karaa marka tii head aa leedahay tii qaybta headka qaybta body ah kasoo muuqanaysa content-ina waxaa leedahay tii body halka qaybta kale oo footer-kana aa dhihaysa tii footer uu leeyahayna tii footer ayaa leedahay okay marka mid waliba wuxuu leeyahay row ayuu leeyahay yani row uu leeyahay marka rowga waxaa leedahay marka tii row mid waliba wuxuu leeyahay rowas marka head inta kale ma ogolaya adaasheeda marka waxaa leedahay tii head tusaale kale name qofka magaciisa aan qoraynaa waxaan qoraynaa age waxaan qoraynaa class okay iyo wixii lamid ah so intaan oo kale oo markaasi data ah ayaa markaa waxaan ku qoraynaa qaybta body ah oo intaasoo marka rows ah tusaale tii row haddaa dhaho hal row waaye marka waxaan gelinaynaa head meeshay ka tahay kan oo bold laga dhigi doono hadda kan waxaan dhahaynaa td okay table data ayaa laga wadaa marka name waxaan ku aadinaynaa magaca qofka ayaan ku aadinaynaa halka meesha kale oo td aan dheena haddana meesha waxaan ku aadinaynaa age ayaan ku aadinaynaa halka meeshaan aan ku aadinaynaa class ayaan ku aadinaynaa td waxaa leenahay classka fasalka ku aadinaynaa waxaa leenahay tusaale kale sideedaad oo kale so haddii aan soo furo filekan right click open live server saa ujeed tablekii sidaana loo qoray so waxaa weeyaan name kan weeyaan kanna waxaa weeyaan waa age-ka kanna waa classkii marka sidaas fudud ayaa marka loo sameeyaa qaybtan kale waa footer-ka footer-ka hadhow waxaa rintada ku qoranaysaa badan aan lama isticmaalo haddaan row kale inaan sameeyo yani saddexda inaan koobiyey intaba ku sameynaya ogsoonow haddaan rabo inaan row kale aan sameeyo waa inaan row kale inaan soo doorto sidaanoo kale maahan row kale haddaan rabo inaan sameeyo waa inaan row kale aan soo doorto aan dhaho meeshaan waxaan leeyahay t row meeshaan waxaan ku qori doonaa marka td t row mujida so qaybtan waa qaybta headka oo noqon doona qaybtan weeyaan qaybtan waa row koowaad row labaad row saddexaad marka qofka labaad qofka saddexaad qofka afraad sida weeyaan qof walbana td ama datada laga qorayo magaciisa agekiisa iyo wixii lamid ah okay saas kala qoraysaa mujida so qofka magaciisa qoraysaa ageka qoraysaa kadibna waxaa qoraysaa fasalka kale marka insha Allah qaabkan fudud ah waxaa loo sameeyaa tableka marka waxaa muhiim inaad kala fahansantahay tagiska kala duwan balse insha Allah qaabka loo install gareeyo waxaan ku arki doonaa qaybta marka CSS-ka inagoo marka content badan ku soo dari doono meeshaan kadibna isla arki doono qaabka loo install gareeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu